faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa weerar lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii dhanka maaliyadda degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay bamgacmeed lagu weeraray hoyga uu ka deganaa degmada Wallaweyn gudoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka iyo maaliyadda degmada Wallaweyn Maxamed Cabdullaahi Cumar Koosto. Gudoomiye ku-xigeenka ayaa la sheegay in uu geeriyooday dhaawac culus oo soo gaaray markii la geeyay cisbitaalka magaalada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xaaskiisa ayaa sidoo kale ku dhaawacantay weerarka bambaano ee lagu weeraray hoygiisa, iyadoo sidoo kale dhaawac culus uu soo gaaray aabbaha dhalay gudoomiye ku-xigeenka geeriyooday. Ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Wallaweyn ayaa la sheegay in xalay ilaa saakay ay wadaan baaritaano xoog leh oo ay ku baarayaan gudaha magaalada iyo daafaheeda, iyaga oo baadigoob ugu jira kooxihii bamgacmeedka ku weeraray hoyga gudoomiye ku-xigeenkii dhanka maamulka iyo maaliyadda degmada Wallaweyn, kaasi oo ugu dambeyn u geeriyooday dhaawac soo gaaray. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdilcasiis Laftagreen ayaa ka tacsiyadeeyay geerida Maxamed Cabdullaahi Cumar Koosto, isaga oo faray hay-adaha ammaanka in ay baaritaano dhab ah ku sameeyaan dhacdadani iyo kooxihii ka dambeeyey si sharciga loo horgeeyo. Ma jirto ilaa haatan cid sheegatay weerarka bamgacmeed ee lagu khaarijiyey gudoomiye ku-xigeenkii dhinaca maamulka iyo maaliyadda degmada Wallaweyn Maxamed Cabdullaahi Cumar Koosto, laguna dhaawacay xaaskiisii iyo aabihii, kuwaasi oo haatanba lala tacaalayo xaaladooda caafimaad. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya geysay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. wariyahayaga Jaamac Maxamed Saalax ayaa warkan inoo faahfaahinaya. taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ciidamada ammaanka si ay uga qayb qaataan ilaalinta iyo bixinta deeq raashin oo ay dowladdu ugu talagashay dadkii ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi geysay. General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya iyo saraakiil uu horkacayay ayaa gaaray degmadaasi si ay u soo indheeyaan xaaladda guud iyo midda amni, waxayna halkaasi ka soo bilaabeen in ay booqdaan xarunta degmada iyo taliska degmadaasi, waxaana warbaahinta uga warbixiyay xaaladaasi iyo sidii ay mas'uuliyiinta u soo indheeyeen warbaahinta. afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali waxauna yiri sidaad ogtihiin maantay degmada Afgooye waxay ku jirtaa fatahaado uu soo fatahay webiga Shabeelle. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale oo ciidanka booliska ah ayaa maantay kormeer shaqo waxaan ku tagnay degmada Afgooye. taliyuhu wuxuu u kurgulayay xaaladda fatahaadaha ay ku sugan tahay degmadan Afgooye oo ummad Soomaaliyeed ay ku nool yihiin webigu ku soo fatahay. taliyaha oo sii wata kormeerkiisa waxaanu soo marnay saldhigga booliska deegaanka Ceelasha Biyaha, waxaan soo marnay nawaaxiga degmooyinka ama deegaamada ku hareeraysan Muqdisho ilaa iyo Afgooye. hadda waxaan ku sugannahay degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose iyo howlaha ciidanka oo taliyuhu uu kormeeriyay. inta kadib taliyuhu wuxuu saasoo kaleeto kormeerkiisa kamid ahaa in uu soo indheeyo xaaladda fatahaadaha ay ku sugan tahay degmadaas iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool degmada Afgooye. waxaa kale uu taliyuhu dardaaran adag ku reebay saraakiisha kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee guud ahaan ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye, waayo ciidanka booliska Soomaaliyeed daraawiishta ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku sugan Sabiib Caanoole, waxay kale ku sugan yihiin lana howlgalaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay jiida hore ee dagaalka lagu baacsanayo argagixisada kula jiraan ciidanka daraawiishta ee booliska Soomaaliyeed. boqolaal qoys ayaa ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye, wuxuuna sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed, waxayna dadkaasi ay ku soo barakaceen deegaano dhaca duleedka Muqdisho. mahadsanid Jaamac Kadiye. duulimaadyadii caalamiga ahaa ee garoonka Aadan Cadde ayaa maanta dib loo furayaa kadib saameyntii cudurka COVID-19 uu ku yeeshay duulimaadyadii garoonka. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga Cabdiqadar Cabdiraxiin Ibraahim.
shir ay dhowaan magaalada tan caasimadda ah ee muqdisho ku yeesheen golaha ku-meel gaarka ah ee wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulankaasi waxaa intiisa badan lagu jexjeexay saameynta cudurka covid-19 uu ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale duulimaadyadii iyo weliba dhanka waxbarashada. shirka golaha wasiirada oo dhacay 30kii bishan aan soo dhaafnay ee Julaay ee sanadkan waxa ay ku dhawaaqeen in dib loo furayo duulimaadyadii caalamiga ahaa oo dowladdu ay joojisay si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus loona garan og yahay covid-19. dowladda ayaa duulimaadyada caalamiga ah waxay joojisay 16kii bishii Maarso ee sanadkan kadib markii kiisas cudurka covid-19 ah laga helay dalka, waxaana xigtay in 28kii isla bishaasi la joojiyay duulimaadyadii gudaha Soomaaliya walow dhowaan dib loo furay. maanta oo isniina kuna beegan 3 bisha Agoosto ayaa dowladdu horey waxay u shaacisay in dib loo furayo duulimaadyadii caalamiga ahaa, waxaana maanta la filayaa in si toos ah u bilowdo diyaaradaha ka imaanaya Soomaaliya iyo kuwa ka bixi jirayba. dhinaca kale qoraal ka soo baxay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka imaanaya dalka isla markaana ka imaanaya wadamada haatan cudurku uu ku badan yahay baaritaan dhab ah lagu sameyn doono ka hor inta aysan gudaha u gelin Muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka. inta ay xirnaayeen duulimaadyada caalamiga ah waxaa ka dhashay saameyn dhaqaale iyo sidoo kale mid bulsho, waxaana wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya uu sheegay in dhaqaale fara badan ay ku weyday dowladda federaalka Soomaaliya oo markii horeba la celceleysay dhaqaale xumo. waxaase la filayaa in maanta uu dib u bilowdo duulimaadyada caalamiga ahaa ee imaan jiray Muqdisho iyo weliba kuwii ka bixi jiray. howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ayaa taliye cusub u soo magacaabay ciidanka AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdilcasiis Cali Guuleed. howlgalka midowda Afrika ee marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaan AMISOM ee Soomaaliya jooga ayaa waxay xilka ay ka qaadeen taliyihii ciidamada AMISOM ee Soomaaliya General Tebogo Yelma oo iyagu u soo magacaabay taliye cusub oo bedela taliyihii hore. war ka soo baxay howlgalka midowda Afrika ayaa lagu shaaciyay in taliyaha cusub ee ciidamada AMISOM ee Soomaaliya uu noqonayo Lieutenant General Diamond Nyanda oo dhalashadiisu tahay wadankaasi Burundi, waxaana taliyihii hore oo u dhashay dalkaasi Itoobiya. taliyihii hore ciidamada AMISOM ee Soomaaliya General Tebogo Yelma waxaa xilkaani loo magacaabay bishii Janaayo 2019 ayaa saaxiib dhow la ahaa madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana dhowaan la filayaa inuu xilkan ku wareejiyo taliyaha cusub ee AMISOM. howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa waxay ciidamadoodu ay taageero dhinaca amniga ah ay siiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana laga kala keenay dalalka Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti, Ethiopia, waxaana ay dagaal culus kula jiraan xarakada Al-Shabaab.